الرحمن الرحيم قلب wanaagsan halkan waa wararka 24 saac kuna soo dhawaada wararka aan idin heeno kuwoodii ugu weyn warkeena galab aad ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahinno iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Professor Jawaare oo shaaciyay mowqifkiisa ku aadan in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah khasaaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo sii kordhay muxuu Cumar Finish uga laabtay munaasabadii xuska maalinta ciidanka booliiska Soomaaliya Yuusuf Dabageed oo weerar culus ku qaaday madaxda dawlad goboleedka Hirshabelle wararka dibadda ee aan idin heena galabnimadan waxa ugu waaweyn 56,000 oo qori oo lagu qabtay New Zealand kadib weerarkii masaajidka lagu qaaday waxa daawateen qodobadii warkeen ugu waaweynaa waa galabnimo taariikhdu ay ku beegan tahay 22 December 2019 waana axad kuna soo dhawaada warkeenii oo faahfaahsan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe si aad u noqoto daawada koobaad wararkeena hela mahadsanid soo dhawow faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax miino oo nooca dhulka lagu aasaa oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya qaraxaasi ayaa la sheegay in lagu aasay goob qashinka lagu shubo oo ay ku dhagan yihiin maqaayado halka ku yaala waxaana ay noo soo sheegayaan wariyaal halka ku sugan in qaraxa uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta Inji oo ay dhagan yihiin hoggaanka Ahlus Sunnah wal Jamaaca wariyaasha ayaa waxa ay soo warinayaan in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray 3 ruux oo shacab ah isla markaana ka agdhawa aaga uu qaraxu ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa amniga dawladda federaalka ee dhawaan halka la geeyay ayaa tagay goobta uu qaraxu ka dhacay iyagoona halkaas ka waday baaritaano kala duwan oo ku aadan sida uu qaraxu u dhacay wari ma jirto war ka soo baxay laamaha amniga dawladda iyo sidoo kale sheegashada al-shabaab ee ku aadan qaraxa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Islaan Jawaari ayaa sheegay in aan dalkan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah beesha caalamka ayaa waxay khamiistii soo saartay qodobo dhowr ah oo uu ku jiro qodob oranaya in ay Soomaaliya ka dhacdo 2020 doorasho qof iyo cod ah beesha caalamka ayaa qabta in doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya ka qabsoomi karto sanadka soo socda maadaama ay horey uga dhacday sida ay ku andacoonayaan dalalka Iraq iyo sidoo kale Afghanistan xildhibaan Maxamed Sheekh Islaan Jawaari ayaa waxba kama jiraan ku sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay horey uga qabsoomeen Iraq iyo Afghanistan doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto ayaan lagugu sheegin waxa Afghanistan ayay ka dhacday Iraq ayaana u saameeyay ayuu yiri Professor Maxamed Sheekh Islaan Jawaari oo soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Jawaari ayaa qaba in Soomaaliya madax ka noqoto ay ka fududahay in America aad madax ka noqoto waxaana hadalkiisa loo fasirtay in Mareykanku uu ka amni wanaagsan yahay Soomaaliya in madax aad ka noqoto iyo America in aad madax ka noqoto America ayaa fudud in aad madax ka noqoto ayuu yiri gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Maxamed Sheekh Islaan Jawaari ayaa waxa uu warkan ku sheegay wareysi uu siiyay mid ka mid ah telefishinada ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerarkii qaraxa ahaa ee xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug tirada dhimashada weerarkaas ayaana lagu soo weeramayaa in ay ku dhinteen ilaa iyo in ka badan 7 ruux oo iskugu jiraan dad shacab iyo askar ka agdhaweed goobta uu qaraxu ka dhacay halka tirada dhaawacahna ay ku sii dhaafayaan 50 ruux oo u badan yihiin dad shacab ah sida uu xaqiijiyay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo waxa uu sidoo kale sheegay agaasimuhu in dadkaasi ay qabaan dhaawacyo kala duwan haddana lagu baxnaaninayo gudaha isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo Soomaaliya Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa sheegay in gaarigiisa lagu dhuftay qaraxa ayna ka dhaawacmeen asgar ka tirsan ciidamada xoogga Soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaaladiisa ahaa Cabdixamiid ayaa sheegay in markii uu weerarkii ismiidaaminta ahaa uu dhacayay ay ka baxeen hotel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo al-shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda weerarka ayaa sheegtay in weerarkaas ay ku direen saraakiil iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa shalay dib uga noqday garoonka injineer Risow intii ay socotay xafladii xuska 76 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska ciidanka booliiska. sida aynu ogaanay gudoomiye cumar finish ayaa isaga laabtay garoonka markii ciidamada madaxtooyadu ay u diideen in uu ilaaladiisa la galo gudaha garoonka maadaama la filayay inuu xafladda yimaado madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. markii cumar finish oo dhowr jeer isku dayay in loo ogolaado ciidamadiisa isla markaana la hadlay saraakiisha ammaanka sugayay oo uu ku fashilmay arrintan, waxay taasi keentay in guud ahaanba iskaga soo laabto munaasabadda tan. iyo intii xilka loo magacaabay gudoomiye finish waxa uu qaaday tallaabooyin uu si weyn uga adkeysanaya amnigiisa, wuxuuna xafiisyada iyo sidoo kale xaruntiisa la galaa ilaalo gaaraya ilaa iyo 10 ka badan oo ilaaladiisa ka mid ah. mararka qaar baaritaano ku sameeya halka uu booqanayo inta uusan tegin. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay isna ka baaqday munaasabadda kadib markii uu helay fariin amni, isla markaana ay la taliyaashiisu kula taliyeen in uu isaga baaqdo munaasabadaasi. waxaa xafladda ku sugnaa wasiirka amniga Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, wasiirka kalluumaysiga, wasiir duulaha maaliyadda iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada iyo saraakiil kale. sidoo kale ra'iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa ka baaqday xafladda isagoona ka cudur daartay markii waqtiga dambe loo sheegay inuu aado maadaama uu madaxweynuhu ka baaqday xafladda oo lagu maamuusayay 76 sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidan booliis ah oo ay yeelato jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa weerar afka ku qaaday madaxda sare ee maamul goboleedka Hirshabelle. Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday ay jiraan deegaanada maamulka Hirshabelle, isla markaana laga qaabiyay in wax laga qabto arrimahaasi. sidoo kale waxa uu tilmaamay in madaxda sare Hirshabelle ay ku fashilmeen arrimaha ammaanka, gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah ee shabaab. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ayaa hoosta ka xariiqay in al-shabaab ay godoomisay 2 magaalo oo ay ka mid yihiin Jowhar iyo sidoo kale magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. sidoo kale waxa uu tilmaamay in madaxda sare ee maamulka Hirshabelle ay ku fashilmeen arrimaha ammaanka, gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah ee shabaab. Dabageed ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in al-shabaab ay 5 kiiloomitir u jiraan magaalada Beledweyne oo ka tirsan gobolka Hiiraan. waa nasiib daro in xaaladda amni daro intaas ay la egtahay Hirshabelle, kama jiro madax Hirshabelle san ka aamusi karin arrimahan ku aadan amniga. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe ay sii xoogeysteen dhibaatooyinka amni ee ka jira gobolka Hiiraan iyo sidoo kale kan Shabeellada Dhexe. inta badan shabaab waxa ay xoog gobolkaas ku weeraraan ciidamadana jidgalka ay u galaan, waxaana la sheegay in shabaabku ay ku sugan yihiin wadooyinka ugu waaweyn gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe ay ka mid tahay wadada dheer ee Muqdisho ka baxda isla markaana aada magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle. halka warkan aad ka daawanaysaan waa wararka 24 saac. markana ku soo dhawaada wararka dibadda. dowladda New Zealand ayaa sheegtay in ay 6 bilood gudahooda shacabka kaga soo aruurisay in ka badan 56,000 oo qori ah. tallaabada ay dowladda New Zealand xubka ku soo aruurinayso ayaa timid kadib markii uu dhacay weerarka masaajidka ee lagu dilay 51 qof oo muslimiin ah, waxaana dowladdu gabi ahaanba shacabka ka mamnuucday isticmaalka hubka ay haystaan. xayiraadda hubkan ayaa waxaa ansixiyay baarlamaanka dalkaas 15 bishii Maaj, wax yar uun kadib markii uu dhacay weerarka masaajidka New Zealand lagu qaaday. waxaana weerarkaas dacwad looga soo oogay mas-uuliyiin ka tirsan waddanka Australia una dhashay halkaasna ku sugan. hirgelinta xayiraadda hubka ee New Zealand waxa ay bilaabatay bishii Abriil sanadkan. hubka ay dowladda ka soo aruurisay shacabka waxa ay milkiilayaasha hubku ay magdhow ahaan ugu celisay lacagta hubkaas lagu iibiyo oo lagu gadan karo oo qiimo ahaan dadka waddanka ka soo jeeda la siiyay.
barnaamijkan hub ururinta New Zealand waxa uu u eg yahay 20ka bishan December ee 2019 inuu ku jirno isla markaana la soo gabagabeyn doono. afayeen oo hadlay kooxda u ololeysa ka hortagga hubka sharci darrada ah ayaa waxa ay wargeyska New Zealand ay u sheegeen inay aaminsan tahay in dalka New Zealand shacabka gacantiisu ay ku jiraan hubka dalalka laga mamnuucay oo gaaraya 17,000 oo qori ah. guud ahaana warkeenii galabnimo ee maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. haddii aad ku cusubtahay channelkan subscribe si aad u noqoto daawadaha koowaad ee hela xogta halkan aan kusoo gudbino. dhammaantiinna waad mahadsantihiin. nabadgelyo.